shacabka magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxay si weyn kaga cabanayeen dhul bob xooggan oo ka jira magaaladan iyadoona maalmihii la soo dhaafay dadka shacabka ah qayladaan xooggan ay muujinayeen qaarkood waxaa laga barakiciyay dhul dan guud oo dawladdu ay lahayd taas oo ugu dambeyntii dadku shacabka ay sheegeen in ganacsato lagu wareejiyay siyaasi ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu daaha ka qaaday in dhul boobka magaaladan ka socda ay ku lug leeyihiin saraakiil ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo taliyaal ay ku jiraan waxa uu xildhibaanku uu sheegay in marka dadka shacabka ah laga barakicinayo dhul dan guud dhulka rababa ha ahaadee in taliyaasha ciidamada hogaankooda ay lacago ay ku dhufsadaan dadkaasina ay ka qaataan lacagahaasina ay ka macaashaan waa sida hadalku uu dhigay wuxuuna Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame saraakiishaasi ku eedeeyay inay yihiin kuwo lacagta bulshada Soomaaliyeed ka naxay oo uu ugu yeeray faad katis ama mukulaalaha caylan waa sidoo hadalku dhigay waxa arkaysa taliye booliis oo ganacsadii dalka lacag badan sabab dhulku dadka barakiciya lacag ka qaata dhulkii la xaraashayo qayb uu ku leeyahay waxa leeyahay hadana waa taliyihii booliiska ayaa lagu leeyahay oo talis booliis uu qofkaas jooga waliba hadda waxa lagu darsaday in qofkii wax sheegaba hadana uu soo xiro xabsiga geeyo oo yiraahdo madaxweynaha wax laga sheegay dadkii yaa barakiciya hadduna booliis barakicin taliya barakiciya waa la yaqaanaa waa loo tagaa magaalada caan uu ka yahay inaan ugu qasabta ma magaciisa hadda inaan naadino wuxuu ku biiray waxa la yiraahdo kuwan u bixiyay mukulaalaha caylan oo madaxweynaha sameeyay faadkaatiska dhulka la jebinayo qaybtiisu qaataa laakiin waa inuu ogaadaa kuwa kaa horreeya waddadaas mar ku cibro qaado xarumihii caafimaadka MHSyada ay ka mid yihiin oo maalin kasta xaraash lagu wado boosteejooyinkii jardiinooyinkii meel fiyow inaysan dalkii aysan jirinin oo dhulboobku maalin ka dambeeya sii xoogeysanayo annagana waxaan ku qasbannahay inaan mar kasta dadkaas u muujino la jirsi garab taagnaan codkooda inaan kor u qaadno dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba intii wax nagala dhaxayso aan gaarsiino aan ku qasbannahay sida la socotaan dalalka ka soo kabta colaadaha sokeeye ee ka soo baxa isdilka iyo burburka dhulku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu muhiimsan hadday tahay dhulkii dawladda ama dhulkii dadka gaarka lahaayeen hadday tahay hantida guurtada ah iyo midda guurta intaba ilaan dalkii colaada ka dhacday waa la isku dilay waa lagu kala tegay saas daraadeeda wadamada ceenkaas ah waxay sameeyaan xeerar waxay dhigaan sharciyo habraacyo siyaasado cadcad guddiyo madax bannaan oo arrimaha dhulka iyo hantida maguurtada ah iyo guurtadaba ah la tacaalo ayaa la sameeyaa waan ka xunnahay runtii inaan sharciyadii hore ee dawladihii hore wax ku dhiseen iyo midda hadda intii ku meel gaarka laga baxay lagu dhisay midkiisna aan la tixgelinayn oo madaxdii dawladda ay la soo taagan yihiin sharci maba jiraba inay aqoon la'aan ka tahay oo jahli ay ka tahay iyo inay kibir iyo nacasnimo ka tahay mid ay tahay ma garanayne inay leeyihiin sharci maba jiraba oo wixii aan rabno yaan sameey karnaa ummadaha kale laakiin ee dhibka nooga dambeeyay ee ka baxay tusaale ahaan Rwanda ka mid ah 4 sano dhibka nooga dambeysay colaad sokeeye 94 iyo dagaal sokeeye ka dhacay waxyaalaha ay sameeyeen waxay ka mid tahay in dhulka loo maareeyay iyo hantida guurtada ama guurtadaba si sharciya oo sax loo maareeyay waxyaalaha waxay ka mid tahay keena xasuul la'aanta dhulka si qalad loo maareeyo burburka dhaqaalaha keena waxay kaloo keentaa in dadku ay colaadaha sii shidaaliso ayay keentaa waxa ayaan dara ah in halkii mudnaanta laga sii lahaa dadka barakacayaasha ah ama kuwa qaxootiga oo dib loo dejinayo dalka ka baxay ama kuwa danyarta ah masaakiinta ah la naaxinayo koox yar oo kooban magacay rabta ha yeelatee la naaxinayo intii oo madaxweyne xasan sheekh xilka joogay dad yar ayaa taajiray waxay ku taajireen muddo kooban oo dad 20 sano tacabkooda dhididkooda tabcay ganacsi ku tabcay hanti aysan haysanaa waxay haystaan dad yar ee muddadii yareed asaga xilka 3 sano barka uu joogay dad joogay yaa ka lacag badan dad 20 sano dhididkooda maalay maxaa dhacay waxaa la siiyay hanti sharci darro ah waxaad arkaysaa taliye booliis
oo halkii la rabo inuu ammaan u soo jeedo nafur sameey ciidanka maxaa lagu yaqaanay soo jeed ammaan nafur ayaa lagu yaqaanay waxaa arkaysaa taliye booliis oo ganacsadii dalka lacag badan sabab dhulkuu dadka barakiciyaa lacag ka qaataa dhulkii la xaraashaayo qayb uu ku leeyahay waxaa leeyahay haddana waa taliyihii booliska ayaa lagu leeyahay oo talis boolis uu qofkaas joogaa weliba hadda waxaa lagu darsaday in qofkii wax sheegaaba haddana uu soo xiro uu xabsiga geeyo oo yidhaahdo madaxweynaha wax laga sheegay oo madaxweynaha maxaa wax lagu sheegi waayo hadduu ummadda hantideedii qaadanayo oo dadkii barakicinayo oo masaakiintii u turaynin maxaa looga sheegi waayo dastuurkaa damaanad qaadayo xorriyadda hadalka oday nabadoonaa xiran dad badanaa xiran annaga aan naqaaniy kuwaan aqoonin waxaa ka mid a sidaa la socotaan nabadoon xaadoole oo weli xabsiga ku jira oo inuu dhul la xaraashaayo ka hadla ugu jira dumar masaakiina maalin kasta la xiraa dhallinyaraa la xiraa waxaa lagu leeyahay anshaxumay ku kaceen oo madaxweynaha ayay jirkiisa kamida wax ka sheegeen anshaxumada waa wax xun oo waxaan taageersannahay maaha waa wax akhlaaqda iyo diinta kasoo horjeeda laakiin waxaa la yaab leh reer bani israa'iil labaa lagu halaagay soo nabigeena calayhi salatu salaam noo sheegay mid waa inaysan munkarka iska reebi jirin midka kale ma taqaanaan waa in uu sharciga qofka maskiinkaa keliya qaba jiray sharciga ninka dhulka dadka barakicinayo boobaya aan qabanayn sharciga ninka ummadda hantideeda qaadanaya aan qabanayn sharciga ka ilmaha yareerka ay ooynayeen masaakiinta aan qabanayn ee wiil Facebook ama TikTok ka caytama qabanayo sharcigaas midkuu yahay mid la garanayo runtii ma aha waxaan rabaa in halkan madaxweynaha mar kale abiil uga jeediyo madaxweynuhu ummadda Soomaaliyeed ka xisho annagana naga xisho adduunka ku aqoonsan inaa madaxweyne Soomaaliyeed tahayna ka xisho walaalow dhulkan arrimihiisa ka dhaxbax ee naga jooji waa qodob midda labaad wasiirada qaasatan kuwa waxbarashada iyo caafimaadka ee jaamacadihii iyo xarumihii caafimaadka waa ka maaran laga soo qoray eedda qeybaa ku leedihiin wasiir kasta waa ku leeyahay oo dhul dowladeed waa laga maarmay qora laakiin waxaa ugu daran waxbarashada iyo caafimaadka waa meeshii adeega aasaasiga ah ee bulshada wax loogu qaban lahaa marka lagaa qorto warqad waa ka maarmay adoo og inay wasaaraddaada intaasoo oo shaqo caafimaad ama xarun ay u baahan tahay howl ama iskool ama jaamacad lagaa qorto warqad ka maaran ah beri walaalo yaad ku eedeysaa maaha inuu madaxweynaha keliya eedda leeyahay waa la leedihiin eedda arrintaas ogaada waxaa kaloo mar kale aan ku celinaynaa arrinta dhulfidsiga dhulfidsiga wuxuu noqday arrin cusub guddoomiye wax mid gobol mid degmo inuu dhulkii ku fidiyo dhulkii dowladda ee dadka laga barakiciyey ee awoodda loogu sheegtay ee sida sharci darrada ah lagu qaatay yaa waxaa la bilaaba deertaan dhul dad leeyihiin in lagu fidsado oo gobolka guddoomiyihiisa intaa u tagto oo amraayo cabir in lagu soo saaro adigan waa arrin cusub waa dhul dad leeyihiin horena waa uga dignay sideedaba dulmiga markaa fiirsato oo dadka adiga dulmi aan ku soo gaari markaa fiirsato waxaad sugaysaa maalintu adiga kugu yimaado tusaale haddaa idinka saxafiyiinta gabar ama wiil saxafi oo la xiray dulmi ku fiirsataan idinkana maalintiina uu ku imaanaya haddii mid dhul laga dhacayo lagu fiirsado adna maalintaada kugu imaanaya saas daraaddeed yaa waxaan ugu baaqayaa culimmada war culimmadii aawe war mayna dulmiga u jeeda dadka lagula kacayo war qareennadii iyo bulshadii reedka ahayd aawe qoladii bulshada reedka la dhihi jiray xaggee ka dhaceen ma waa dulmiga arkaynin mise dhulka la qaadanaya qayb ka noqdeen aawe odayaashii dambiirka lahaa ee dhaqanka ma inuu siyaasi soo baxo keliya oo dadkaas u hadlaa la sugayaa war bulshada qaybo kala duwanay leedahay waxaanse halkan rabaa inaan ka caddeeyo oona ku celceliyo waxa annaga aan kasbannay haddaan shacab Soomaaliyeed nahay oo adeeg ah oo dhismo ah oo nolol ah oo hadday tahay isgaarsiin hadday tahay isbitaallo hadday tahay jaamacado hadday tahay laamiyaan dhisanay hadday tahay diyaarado wax kasto annaga aan keensanay oo shacabka Soomaaliyeed ay kasbadeen haddii lagu dulminaayo dulmi ka yimaada dowladda ilaan quraanka wuxuu leeyahay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa
dulmiga ka imaanaya dowladda ayaa duminaya waxaa si shacabkaas awooddiisa iyo dadnimadiisa u kasbaday dulmigaa duminaya saas daraaddeed waa inaan dulmiga iska qabanaa dulmigana qolo keliya ma qaban karto sideedaba waxaa la yidhahdaa burkaanaha midka sayniska ee geologiga culammada geologiga taqaano laakiin burkaanaha bulshada cid taqaano male goor qarxayo maalintii hogaamiye kooxeedka xamar laga saarayay in laga saarayo qof ogeed male dadka ayagaa soo kacay sideedaba lama garto burkaanaha caynkaas ah waa gaas guri ka buuxa adoo ogeyn tarqa ku daarto oo kale waa dadka la caburinayo masaakiinta la barakicinayo qeyla dhaanta yeerayso islaamaha umulaha oo seexala amsi ajada la burburinayo